بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد والله لا وحين كسو جني بشهر رمضان دروسي نو سocotay maanta waa maalintii sideedaad iyo darsigii sideedaad. waxaan ka soo hadlaynay labada casho oo dambeysay ducada iyo qeybaheeda. maanta wali waxaan sii wadnaa mowduuc ku saabsanaa ducada. waxaan rabnaa laba qodob inaan ku soo koobo. qodobka koowaad, ducadu aadaab bay leedahay la maro oo qofka u sahasha in ducada laga aqbalo. marka aadaabtaas qeybaha ay tahay inaan wax ka tilmaamo. iyo arrinka labaad oo ah ma dhici kartaa ducada in wax hor istaagaan ama in la aqbalo, maxaa diidi kara ama dhaawici kara. labada qodob in wax ka nahdo. qodobka ugu horeeya walaalayaal oo ah ducada aadaabteeda, waxaan ka heli doonaa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisa. waana aadaab nabigu uu maray sallallahu alayhi wasallam ama uu sheegay in la maro ayna fiicanta qofka inuu maro. arrinka ugu horeeya waa qofku inuu ilaahay markuu baryayo uu aad u sheego magacyadiisa ilaahay. laana al-quraanka wuxuu ku leeyahay walillaahi al-asmaa'u al-husnaa fad'uuhu biha. ilaahay wuxuu leeyahay magacyo fiican in la maqlo u fiican, dhagaha u fiican, qalbiga u fiican uu ku degayo. magacyo tilmaamaya maxay? ilaahay inuu deeqsi yahay, inuu naxariis badan yahay, inuu adduunka leeyahay. magacyadaas allaha iska leh fad'uuhu biha, isaga ku barya marka. ii naxariiso ilaahayow wa anta arhamur raahimiin. inta naxariisata adaa ugu naxariis badan. ilaahu dembigayga ii dhaaf wa anta al-ghafuurur rahiim. adaa dembiga dhaafa. yacni qofka inuu isticmaalo magacyada ilaahay waa aadaab kamida tilmaamaysa maxay? in ilaahay ducada uu ka aqbalo. arrinka labaad ee tilmaamaysa waxa weeye markuu qofku ducaysanayo inuu ka hormariyo ammaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala. alle inuu ammaano, ama carabi ku ammaan ama soomaali ku ammaan, waa ama u fiican tahay. waxaana daliil u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu arkay nin intuu tukaday horey ku ducaystay. markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi cajalta ayuha almusalli, waa degdegtay ducada, waa degdegtay. oo si u degdegtay marka aad tukato ood fadhiisato marka hore ilaahay ammaanta ilaahay hormari, kabacdi ducaysa. markaas marka qofku inuu alle ammaano, ilaahay adiga raxiima, adaa qaadira, adaa wax walba awooda, ilaahay ammaantiisa hormari. arrinka saddexaad ee ducada aadaabteeda ka mid ah waxaa weeye in nabiga aad ku salido calayhi salaatu wasalaam. markaad ilaahay ammaanto salliga nabiga ku xiji sallallahu calayhi wasallam. maxaa yeele nabigu xadiis wuxuu ku leeyahay kullu ducaa'in maxjuubun xataa tusalli cala annabiy. duca kasta waa la baloogareeyey, waa la istaajiyey ilaa nabiga lagu saliyo sallallahu calayhi wasallam. marka qofku markuu ducaysanayo inuu ammaanta ilaahay iyo salliga nabiga uu ka hormariyo calayhi salaatu wasalaam waa waxyaalaha ducada barka aadaabta u yeela. arrinka afraad waxa weeye qofka fiican tahay in uu qiblada u jeesto markuu ducaysanayo. oo nabiga sallallahu calayhi wasallam markii beder ay saxaabadu aadayeen, dagaalkii beder ee u ducaynayay, waxay leeyihiin saxaabadu waxaanu aragnay saxaabadii oo tiro yar 300 iyo xoogaaya oo sii socda, iyo nabigu intuu qiblada u jeestay ilaahay baryaya oo dhahay ilaahay u gargaar. marka way fiicanta qofku qiblada inuu u jeesto. arrinka shanaad ee isna muhiimka waxa weeye qofka gacmaha inuu kor u taago. wataan soo sheegnay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka xishoodaa inuu soo celiyo gacmo kor loogu taagay iyagoo maran, waxba ilaahay kugu ridaya. marka waa qaabka ugu fiican. sheekh Uthaymin raxmatullahi calayhi wuxuu leeyahay sifada ugu fiican ee la soo wariyo waa in gacmaha inta saa la isugu dhajiyo, saa kor loogu taago, oo calaacaluhuna ay kor jiraan, aysan hoos jirin. sifada lixaad baa waxaa ka mid ah oo nabiga calaysalaam isagaa wuxuu sheegay idaa sa'altumullah fas'aluuhu bibuduuni akufakum. haddaad ilaahay baryaysaan calaacalaha ku barya,
dhabarka ku barina gacmaha dhabarkooda ee gacmaha korkooda ku bari marka gacmaha qofka inuu taago iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha aadaabta ducada waxaa ka mid ah qof markuu ilaahay baryayo waa inuu yaqiiniyaa oo dhab u qaataa in ilaahay ka aqbalayo laana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo dhabaysanaya oo aaminaya in ilaahay ducada idinka ajiibi doono insha allahu tacaala arrinka sideedaad ee isna muhiimka waxaa weeye in qofku markuu ilaahay baryayo uusan ka dhigin khiyaar iyo ilaahay waxa ma isiin kartaa qofku uu gooyo ilaahay idin dhaaf ilaahay in naxariiso laakiin hadhihin ilaahay idin dhaaf hadaa rabtaa dhihin nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت إلهي إيد مدف هدار بتاعدهني قوي وحتى إلهي الدمج يدف إلهي إن حدث إلهي وحائسي قفك هجس ميو أرنك سجالة وحيمي كل على إسنا قفك مركو إلهي بريئيو وإن كم وقتا هيبد باهنمو وإن كم وقتا وإن دلنمو إن إلهي باهي هاي إن باهي هايسو وإنه موتيا وإلهي القرآن كحكول ليه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إلهي وحاد بريدان دعاء وحاد بريسان استلين كم وقته وقرسودي كم وقته مركو إلهي أماني أنبياء إلهي الدعاء لقى أقبلي وحكوك بقبي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أنبياء إلهي وحيعان كو أهايين إني خير كأودك دقان ونبريان إيقونا رجينيا ونحريست يدا كان بقى عذابك يقى وكانوا لنا خاشعين وحين أهايين كو كم وغتي استدلين كم وغتي نبي السجارة وحلويدي عليه الصلاة والسلام واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية إلهي وحال بريدا يضو كان موقت اسدلين يسبين بهن يقرسود كان موقت أرين كتبناد مهم كوحوية سنة قف مركو الدعاء سنة إنه كوعي عليه صدح قور يكبضا والنبي عليه الصلاة والسلام حال قوريا مروا دعيني وكان إذا دعا ثلاثا بسحب قاسليه وإذا سأل ثلاثا هدو إلهي بريايو أو حويدي سنيو صدح قور بكوع العلن شري مرك إلحاحة يكوع العلن توحلوع العليو وقيبت المامي سباهيدا شيء أنا أذوقبته أرنك أقدم بيا مهمك وحوي ولا ليال qofka markuu ducaysanayo inuu yahay qof xalaal quuta ah inuu qofku xalaal cun yahay markuu ducaysanayo waxyaalaha ducada tare ka mid tahay haddaynu inta uga baxno aadaabta ducada waxaynu ku xijinaynaa qodobada ducada hor istaagi kara oo in la aqbalo diidi kara iyo axaadiista ku soo aroortay 3 ama 4 aan ka sheegno insha Allah taala arrinka ugu horeeya ee ducada qofka in laga aqbalin keeni kara وإنه حاران عنه على ورشيس إني حاران قصو باوح قوين هرستاي كرا وحانو عارك عضينا يا نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا اللي وقال وناكسن وحن وناكسنين وفينينا اللي ما أقبله كبعد النبي وحكشيكي عليه الصلاة والسلام nin safar galay safar dheer galay oo ka muuqato safarka xaaladiisi timihiisa iyo boorka iyo wajiga iyo wuxuu ay ka muuqato gacmihiisana kor u taagayo ilaahay baryaya waa 3 sifo oo sifooyinka ducada lagu aqbalaa qof markuu musaafirka yahay ducadiisa waa la aqbalaa markii dulinimo ka muuqato saan sheegnayna ducadiisa waa la aqbalaa markuu gacmaha kor u taagana ducadiisa waa la aqbalaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ninkan intaasiba way ka muuqataa wuxuu nabigu daba dhigay
ومدعمه حرام لكن كان وحصاعني وحرام ومشربه حرام ذلك اللي بيسيه هنا وحرام وقضي بالحرام حرامنا وكسوك وسوقوتي فأنا يستجاب له سيلو أتي الدعاء يعني النبي وحوش عليه الصلاة والسلام مرها ديب حرام كهر رسنتهاي ووحو لبسيه هي وحو عني بحرام يهين سيدي لو أتي الدعاء هدي مركا ننكي انتاسو علامات الدعاء لو أتي كم موقدين نبي يقول ليه حاران عني أوجد بندعو له أتيبين وحقران كرتا ولا ليال حاران تأوقفك أعنه أما أكشا قيستو وحيالها إن دعاء قفك لقى أقبل أديده بل إسكبا داي حاران تأولا عنه وحيك قد وانتهي ذنوب تكالي وحي سامين الساعة عبادات هذه إيه شركاقي إيه عافمات كاقي إيه قريقاقي سيدا أوجد بين النبي عليه الصلاة والسلام يرقي صحابته وتببري صلى الله عليه وسلم وحي آد استقي إلى الانشرين إن علوش هذا الشيء حراني وقاله مثلا نبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري كسقنا قولي سويمي مركز وحوار كيس فراش كيسة كور كيسة حبات تمر وسعرا مركز نبي حد عينه سواقاته صلى الله عليه وسلم باهي أوجيسي وقريسي ماشو يمي لأن النبي وحيد أرمي النقطة صدقه وصدق الله كان النقطة لأن صدقة النبي حرام بكاه معون شرين لكن النبي أنتوا تمرتي قاعدوا إسكندرية وحيا هي عقلك استحضر إنه يلاهدو ليش وقريجي وقعتي سنتهاي وحولهاجي لكن عرر وكعرر أيو وحشك كتشر إن علوشي سأيقلان بو النبي وحوقتك عليه الصلاة والسلام تمر وباهي وقابو قرقيسي تعالى انت وحكا عرريا ان عبادتيسا iyo salaadiisa iyo ducadiisa iyo quraankiisa iyo gurigiisa iyo reerka iyo caruurta aysan soo gelin wax xaalaana soo gelin waxa la mid aha Abu Bakr radiyallahu anhu warda oo ahaa ninkii ugu fadliga badnaa muslimiinta nin u shaqeynayay baa cunto siiyay markuu cuntadii siiyay ee Abu Bakr cunay buu ku yiri ma garanaysaa waxa aan ku siiyay waxa ay yihiin markaasuu ma garan maayo markaasuu nin aan u shaqeyn jiray oo sixirka iyo faalkii ka shaqbeer hore ka shaqeyn jiray xoolo aan ka soo shaqeystay weeye Abu Bakr wuxuu bilaabay inuu iska matajiyo ilaa saxaabadu ay ku yiraahdeen Abu Bakrow way kugu filantahay intaas iska joojis matajinta markaasuu wallaahi waan wadayaa inaan iska matajiyo waxa xaaraantan cunay xitaa hadaan ogahay inay nafta iga baxayso markuu matagi dhameeyay buu Ilaahay bari muxuu ka bari Ilaahay wixii ku dhuuntay xididada ee meel khalada raacay oo soo saari kari waayay Ilaahay iga cafi muxuu Abu Bakr sida u sameeynaya ونك ورينا حديث النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به شد والباء وحاران لو كريه النار بأسكله سيدا أوجد قفك الدنيا دعادي سئن لأقبله وحامهيمة إن قف كاسي وحلاشك دداله أرنك الله بعد الدعاء هو استاغ وحكم ذا قفك إنه دعيسته سوى ملك لك فكرية وقلبك سملك لكم مغيحي نبي يقول عليه الصلاة والسلام إله ما أقبله من قلب قافل لاهن قلب مشغول سن وملك لكم مشغول سن سيدا وقفك إنه اسكيل عليه محاض ملايين بني آدم أديقو كلاء بمركز أتكتو أدلكو الميسو هذا كتير تنسيتو كاحناقية فكيف إلهي ويناد ربطين هذا الشو وحاخسا انت كتيرا وإن قلبك أقول سوتي هذا أرنك كلا اسند دعاء إن لأتي هرستاق وحكم بذا قرابة قوس نمذا قفك قرابة إنه قويه تلك قرابة إن صور شاقني وحنا بيقول لي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لأحدكم قفكين ولقاء أجيبه انت أوسن دقدقين
أما وسن قرابة جوس نما سمين أنا حديث كلا شيء وشاقي قرابة هذا أو جيسه وحي كم يتهي وحيالها هر استاجا دعاء إن لقى أقبله إن دقته وترى إله وانبري ولا أتي وينا وحي كم يتهي وحيالها الدعاء إن لقى أتي بن كان أنفيرنا نبياش إلهي نبي يوسف عليه السلام ما يقول حبسك كتيري تضبسنا سو إلهي مو برينين ها بريدو وعبادو وحي أدلبتي هداد ويدو هقوصنين وهدقدقين سوق ولغيابا حلقا وحن كو هبون يحي إن لغو سيو إن إلهي كو قرانيو وهدي هدا لغو سيو سيدا أم علينا اسمح كو ترينين مركي هدقدق سنين لسوق انت إلهي كا قرن سبحانه وتعالى وحاكم إذا أنا قلت بيسين إنه وحيالها الدعاء إن الهور استاغو إن حمانتا مركا الله أركل الريبي وايو وناقنا لفري وايو والنبي يقول عليه الصلاة والسلام حمانتا إيا وناقا بعد حمانتا ريبي دونتان وناقنا وأمر دونتان هدا سيدا يلي ويدان إلهي عذاب ودن كسو دجين دونا هداد بردان إذن كأجيبي مايو marka qof walba inta aad awoodo ama gurigaaga ha ahaato ama shaqada ha ahaato ama asxaabta ha ahaato ama social media ha ahaatee meeshii wax xumaana oo munkara oo ilaahay raali uusan ka ahayn laga sheegayo waxaa tiraahdaa waxani waa khaldan yahay meeshii wanaag in la rabo u baahanna wanaaga hala sheego haddii sidaa la yeeli waayo bariyadeena iyo gacmataageenu waxa ma tari doonaan إن المركو دالنو وحيالها آدابت الدعاء إنه سهلية إله إنه نجا أقبله إنا إسكا إلى لأنه وحنا جوهر استاجي إن تذكروا من 10 كيني وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.